ahaan xaaladda amni ee deegaanada koonfur galbeed ayaa ahayd mid sanadihii la soo dhaafay liidatay degmooyinkaas waxa ay isugu jiraan kuwa gacanta dawladda ku jira iyo kuwa ay shabaab haysato kuwa gacanta dawladda ku jira ayaa qaar badan oo kamid ah ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab sida degmooyinka Xudur, Waajid, Diinsoor, Qansax Dheere iyo Bardaale xaaladda nolosha ee dadka ku nool deegaanadaas waa mid laga naxo oo maraysa meel aad u daran maadaama ay al-shabaab go'doomisay magaalooyinkaas waxa ay go'doonkaas ku jireen ilaa 8 sano oo nolosha dadkii ciriiri gashay si ay u furtaan jidadka ka xiran ayaa dadka deegaankaas muddadii ay mataqaanaa socotay arintaas go'doominta waxa ku nafwaayay boqolaal ciidanka deegaanka kamid ah iyo shacab waxa kale oo ku baaba'ay lana gubay hanti wixii ay lahaayeen dadka deegaanka oo ay ku jiraan ku dhawaad boqol noocyada gaadiidka isugu jira baabuurta xamuulka bajaajyada gawaarida dadweynaha ay adeegsadaan gaar ahaan gaari dameerada iyo wixii la midka ah nasiib darro go'doonkaas waxa uu sii xoogaystay 4 sano ee u dambeysay gaar ahaan 4 bilood ee la soo dhaafay sababta ugu weyn waxa ay tahay dayacaad ka timid dawladda Soomaaliya ayadoo oo ciidamadii militariga ee joogay deegaanadaas laga soo qaaday intooda badan kuwii joogayna aan haysan saanad militari oo ku filan meel ay Soomaaliya weli ka dhacday ma jirto magaalooyin intaas go'doonsan oo ay wadooyinkii ka xiran yihiin haba yaraatee aanay jirin meel ay u soo marto cuntada quutul daruuriga ah haddaba dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas waxa ay dareemayaan cadaawad gaar ah oo imaanaysa kooxda al-shabaab iyo cadaalad darro ay ka tirsanayaan dawladda Soomaaliya sababtu waxa ay tahay oo jawaab loo leeyahay in kooxda al-shabaab ay go'doomiyeen magaalooyinkaas ayadoo magaalooyinkii dariska la ahaa aan go'doonsanayn waxa jawaab loo waayay sababta Muqdisho oo ay dawladdu haysato ciidamo ajnabi joogaan gaariga ka baxa ee mara 10 meelood ku dhawaad oo ay sidaas oo kale dawladdu xukunto markuu gaaro nawaaxiga magaalooyinkaas kor ku xusan loo gubo waxa kale oo ay shacabku la yaaban yihiin sababta aanay dawladda Soomaaliya u danaynin nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan magaalooyinkaas aanayna u dhageysan tabashooyinka ay qabaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan xasuustaa tiro 4 jeer ah inaan hor fariistay shakhsiyan oo dhibaatada deegaankaas uga warramay tusaaleeyayna sida ugu fudud ee wax looga qaban karo balse nasiib darro dhig jalaq looma siinin su'aalaha ay dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool isweydiinayaan waxa kamid ah ciidanka qaranka ee maalin walba loo daabulo goobo ay doorasho ka socoto maxaa loogu badbaadin waayay nolosha dadka Soomaaliyeed ee halista ku jira ama mise kursiga ayaa ka muhiimsan nolosha dadkaas ayaa inoo sheegi kara xigmadda ku jirta in ciidamadaas diyaarad lagu dulmariyo dad go'doonsan oo ay nolol haysan balse uu loo adeegsanayo dana gaar ah oo siyaasadeed yaa naga jaahil bixin kara in dawladda ay $1 milyan maalmo ku gaarsiiso magaalo ay waxyeello ka soo gaartay roob balse aanay dawladdu xusin danna ka gelin deegaano dhan oo dadkii noloshooda ciriiri ku jirto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay dadka deegaankaas weydiinayaan in aadan u cadaalad falin oo ayaga iyo kuwa geda aanay isugu ka mid ahayn sababtoo waxa ay arkayaan dadaalka dheeraadka ah ee aad gelinayso deegaanka aad ka soo jeedo ee gobolka Gadow haddaba xalka muxuu yahay dawladda Soomaaliyeed alla ceebteeda ma asturin ee haysdaba qabato oo xal degdeg ah iyo mid waaraba la gaarto dadka goboladaas ku nool sidoo kale maamulka koonfur galbeed annagoo aragna inay ka gaabiyeen dhibaatada dadkaas haysata waa inay si degdeg ah uga howlgalaan wixii tabartooda ayagoo kaashanaya dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool waxa aan leenahay isku tashada wixii tabartiina ah sidii aad horeyba isugu tashan jirteen allana ka barya in dawlad cadaalad idin sameeysa oo xuquuqdiina idin siisa inoo keeno maadaama dawladdan aniga aan ka tirsanaa muddada 4 sano ay idin siin weyday xuquuqdii asaasiga ahayd oo aad lahaydeen oo ay ka mid tahay amniga oo billahi tawfiiq السلام عليكم magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga
aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy